كان عريان نقدي heer waxaan gaaray isbitaalka la igu furo markii ay caafimaad qabtay aad ay u jeclaa waa uu kulkulinay laakiin magaalada Muqdisho iyadoo dhaxmaraysa ayuu qarax haleelay labada lugood ayaa ka go'ay kadib ninkii wuxuu u sheegay inuu sarrabin haweeney labada lugood ka go'an waa uu ka tagay ilmihiina waa uga dhaxbaxay duruuf adag ba soo martay dad uma aysan cabanin rabbi ayay tala saaratay hadda xaalka ayaa ku xumaaday gurigaas aad u jeeday ay dhax jiiftaa ilmihii kaliya ayay ku tahay gurigii ayaa loogu yimid oo la leeyahay lacag tira badan ku bixi hadii kale iskaga gur iyada ma aysan jeclaysan lahayn inay ku hor imaato oo ay ku barido waxay ka codsanay kow in afariinteeda gudbisid hadaadan adigu waxba haynin oo aad gaarsiisid walaalka waxaay hadaa waxaysidna aad waxa awoodid taleefanka afkeeda ay ka sheegayso u waridid ha iskugu darin lababa inaad waxna siin weysid fariinteedana walaal wax siin lahaa aad u gudbin weysid walaalayaal waxaan ahay gabar curyaan ah maadaama aan markaygu horeen aan qof lixaad leh inaan ahaa oo ku aqliyeysata idoo lixaad qabto ma sha Allah waa shaqaysanayay waxaan joogay koofeer ilaana saaray waxaan ku dhaawacmay iska dabka gaar ahaan wehliye labada lugood aan ka go'ay ka bacdi waxa ay galay firir hadana oo isii dhantaalay anigoo hadana shaqadii hadana dib u bilowday ishii way dhaawacantay dhaawac haduu igaarin ilmahayga deeray igu noqdeen oo ninka uu iiga baxay markii awlaadii aniga aan curiyaan noqday heer waxaan gaaray isbitaalka la igu furo alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigoo ilaahayna ku mahadinaayo walaalayaal waxaan cabasho idinkugu soo dirsaday waxay ahayd oo social media saaka aniga ii keenay inaan imaado waa duruufo aniga u gadaaman marka idinkana waxaan ka rajaynayaa ilaahay in aad adooman ilaahay soo adeejiyay oo muxsaneen ah oo islaam ah oo arki kara dhibaatada aniga ay haysato inaad iga damqataan aad iyo aad aan idinku mahad celin doonaa aniga oo dib iga haysto xagga hooyiga guriga aan deganahay oo ku deganahay lacag yar $60 ah hal qol aan deganahay oo jiingad ah waad arkaysiin meesha aan wax ku duubay wax badan kama xageeyo intaas aniga farxadaan ku joogay oo $60 ayaa la iga qaadi jiray hadda waxay noqotay in la dhaho waa dhisaaya dhagax laga dhisaaya guur hadii kale ku deganaa lacagtii oo dhagaxa ku degi lahayd amal ku deg walaalayaal waa ku degi waay oo lacag $100 iyo wax ka badan aniga ma awoodin aan bixiyo ma degi kari ex control iyo meel ciid ah ma degi karo waxaan ku socdo waa lug caag ah iyo artifish baalka may shilka afar birood oo lugaha lugiisa ay yihiin iyo lug caag ah waa sida ka arki doontaan fiidiyowga horena aad ka aragteen marka Soomaaliya iyo qof walbo islaam ah oo ay arki karto dhibaatada aan qabo hadii bacaadka ay ii galaan bacaadka hadii biraha ii galaan kama saaran karo because waxaan ku taaganaa ma ahan lug bili aadan oo labada lugood midna booday ka goontaa midna lug jilibka hoose ka goontaa wiil weyn oo aanay kaaban karo iga bixin karo ciid dangalanay ma qabi oo ilmihii xataa meeshaan la idinka tusaaya caruurtii weerariyiin garab yar waa wali ma aysan qaan gaarin marka idinkoo intaas ii tixgelinayo qof walba oo baahideeda waxa ka qaban kara oo islaam ah oo diinta nabi maxamed la sheegato bili aadanimo islaamnimo soomaalinimo inta iigu danqanayso codkayga oo gaaray waxaan jecelahay in ay dhibaatadan culayska iyo xanuunka aan qabo ay ila qaataan oo ilaahayna iga dulqaado ilaahayga qafuur raxiimka ah dadka ka dulqaadi karo ilaahay annaha iga dulqaado inuu soo duceeyo Soomaaliyeey xanuunka isha iga haayo because qof waxaan ahay shaqo u baratay shaqadini ma qaban karo hadda oo waxa inaafeena mar kale indhii lixda laxaadna waa lagu hayay gacmaha indhii xanuun gaaray maadaama wax fir oo ku jiro oo waa laga saaraa doctor Sheene intuu yiri oo qalin ku sameeyay warqadii xataa waa tusi karaa dadkani oo yiri waxba laga ma qaban karo ishaada dhibaatada intaas leeg aan qabaa walaalayaal maadaama qof fadhiistay oo shaqaysanayeen caruurna haysto waa dib leeyahay xamar kire laga rabo oo koronto laga rabo oo biyo laga rabo oo ilmo iskuulkood laga rabo nooc walba laga rabo walaalayaal hooyiga ay ugu daran insha Allah mar qof walba oo baaqayga uu gaaro oo hadalkayga uu gaaro ilaahay dartiis qof alla qofkii waxa ugu qaban karo inuu ii qabto waana mahadsantiin idinkoo dhan Soomaali Maxamed meel walba oo diga maqlaysaan waa gabadheeni waa walaashiin waa hooyo Soomaaliyeed inta waa ahay walaalayaal
codsigayga inaad aqbashaan qof walba ilaahay wax siiyey igala qayb qaadato dhibaatada culeyskan yahay inuu ilaahay iga qaadan igu soo duceeyo qof walba in naxariistan ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana waasac ha uga dhigo dadka kuma kala lacag badno markay karfanta wada xirtaan hal shay alla waxa wada xiranaya oo loogu tagay adduunka qof walba hanti haystana hantida raaci mayso walaalayaal intaas aan idinka codsaday ilaahay anaan qabriga noo waasicis wala aakhiraha la noo fududeeyo walaalayaal waan salaamaya insha Allah caawinaadna waa idin weydiiyey oo ilaahay baa wax caawiye ka sokona bila aadanka uu ku cabidiyaa oo ku adoomiyaa kugu dhiibaa cid alla cid ilaahay wax igu dhiibay oo wax haysto oo i caawin karto inay i caawiso أنا إلهي كرجينايا وحس إلهي كوافجين لما هلو مركا لمركا لا يقصوا عاوين كرفرها واشن وسديتن كنتوني تضبو لباتن وفرها الشن سديتن كنتوني تضبو لباتن حليب إبراهيم آي وقرن أكون لمبرو إلي هاي أكون باي وفرن سلام بنجي مركا أكون كهدان يرينا يهداني ونشيغو أسغنا وصدن يلح صدن يلح سديتن يلح سديتن يلح صدن يلح مركا ولا ليال إذنكو مهسن كلين وانا من سلام انت محسنين تا او قيرك او حاضرك او قيرك او هيليا ولا ليال وحنا هاي نافس وماليات إذنكو وسو عليا مركا لانتو لبعتدا ماشي إيقا هايستو من جعلين إنان بلا آدن هوس إماضو من رب بلا آدن أنتو لكن لحظة لحات أفر كمد يعني ما أنت كحنوسنا وأنا إذن السلام ولا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.